بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadweynaha reer Djibouti meel kastoo joogtaan waan idin salaamaya waxaan jeclaa inaan niyogeysiyo nila qaybtamo taliska Ismaaciil Cumar Geelle iyo maalmul xumada maanta geeda la beerayay oo waxa la yiri waa maalin geed beera waa sax weeyeen la geed la beero waa loo baahan yahay dalkeeno aad u kulul waan u baahanahay laakiin waxa nasiib daraa ku tusaysa inay tahay maxaa loo oran jiray qawda maqashiyo waxba uu qaban Soomaaliya marka waxa nasiib daraa in dhinacna saaka geeda laga beerayay anoo dariiqa riidarta socdana aan kula kulmay geeda horay loo beeray oo arigu ay daaqayaan waa halkee waa caasimadii waa dariiqii weynaa ee riidarta iyo nafdeeda horteeda geedihii lagu beeray oo waliba geedahaasi geeda waxa uu yihiin dibadda nooga yimiday waa nasiib darro weeyii maanta geed beerisa in geedihii la beeray ee horay loo beerayna arigu ay daaqayaan oo cajaladaad ka arki doontaan arigii oo si wanaagsan oo fiican u daaqaya geedihii horay loo beeray waa qawda maqashiyo waxba uu qaban waxaan ognahay inay lacaga badan oo hay'adaha dibaddu ay soo shubaan ay ka dambayso barnaamijkan geed beeritaanka oo lagu dagaalamayo xagga cimilada marka muhiimadda u weyn ee taliska Ismaaciil Cumar Geelle uu ka rabo oo kaliya waa in lacagaha la helo igu sawirtay iyo telefisoonkana ay marto qawda maqashiyo waxba uu qaban insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu dalkeena way ka suura gasho isbedel dhinac walba taabanayo oo geedka la beeri uu tayoobo uu kobco uu waxtar yeesho insha Allah ta'ala meel kastoo joogtaan waan idin salaamay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh